maariish janaalkeeda ayaa hawada ka baxay qurux ku dhigle ayaan la xiriiray maariish ayaa waxa suurta gashay inaan ismaqalno dan waxay ii sheegtay in ayadoo hurda email u soo dhacay markay soo kacday ay aragtay emailadaas waxay ahaayeen screenshot ay soo dirtay in email uu soo dhacay leeyahay akoonkaaga ayaa la isku dayay in meel kale laga furo dadka youtuberleyda way fahmayaan mararka qaar waxa dhacda in ay ku soo dhacdo akoonkaaga ayaa la isku dayayaa in meel kale laga furo sidaan oo kale mararka qaarna waxa ku soo dhacaysaba meel hiblaayo ayaa akoonkaaga laga furay haddii aad adiga tahay halkan yes dheh haddaadan ahayna decline dheh marka kalena waxa lagu leeyahay inay bashqad ku soo dhacda oo ah akoonkaaga la isku dayayaa in meel kale laga furo in lagu ogeysiiyo soo iyada waxay tiri xilliga emailka uu soo dhacay waan hurday gadaal dambe markaa soo kacayna waxaan ku soo kacay in janaalkayga hawada uu ka maqan yahay ma aha sidii adna janal ku dhacaysay sidii waqal studio ku dhacaysay in inta la wareego akoonka magaciisa la bedesho kuma dhicin ee waxa ku dhacdayba gabi ahaanba inuu hawada ka maqan yahay haddii youtube-ka aad taqaanid waa fahmi kartaa wax hadda aan ka sheekeynayo markii ay noqoto janaal hawada ka maqan waxay la mid tahay janaalkaas in delete la dhihi karo janaalkaas in deactivated laga dhigi karo macnaha waxay ku xiran tahay dadkii markaa gacanta ku dhigay marka iyada kiiskeeda waxa hadda aan dhihi karnaa in linki la soo diray ay iyada ku dhufatay janaalkeeda lagulama wareegin sida adna janal iyo ku dhacday oo kale arintan waxa weeye in ay ku dhacday emailkaas loo soo diray markii lagu ogeysiinayo ee janaalkeeda gudaha loogu galayo ee wixii raba laga sameysanayo in number 1 ay fududeyn karto in iyada emailkeeda qof yaqaan uu yahay aniga hadda emailkeygana u jeedid hadii way u dhacdaa aniga ii jeedid xisaab ma laha asad xaajiyo xitaa mararka qaar waa iska wici jirnay xisaab ma lahan yacni inta goor ay ii soo dhacdo Nairobi ayaa laga galay akoonkaaga yes dheh adiga miya Muqdisho ayaa laga galay xisaab